kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad ka joogtiin dunida daafeeda magacaygu waa Axmed Faarax halkaan nagala socotaan waa Himila Training Academy iyo soo kale meel isku soo noqdo wanaagsan saaxiibayaal muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo sidee u jabsan karaa WhatsApp-ka saaxiibkay ama WhatsApp uu leeyahay qof kale xaqiiqatan inaan qof kale la socod sirteeda wax sahlan ma aha balse muuqaalkan ayaa waxaan rabaa inaan kugu tuso farsamo yar oo fudud oo aad kula socon kartid WhatsApp-ka saaxiibka ama qof kale haddaba saaxiibayaal si aan u sameeyno taas waxa u baahan tahay ugu horeyn inaad haysatid laba telefoon oo haysano waxaan ka matali doonaa kana waxa ka dhigi doonaa telefoonka saaxiibkay kana waxa ka dhigi doonaa aniga midkayga oo aan rabay inaan WhatsApp ku jabsado haddaan si kale u yiraahdaan kan waa la jabsaday kana waa wax jabsaday kuma yar fudud ayaan isticmaali doonaa haddaba saaxiibayaal sidii aan hore idinkugu soo sheegayba waxaan rabaa inaan jabsado WhatsApp-ka saaxiibkay anigoo isticmaalaya telefoonkayga si taas marka kugu fududaato waa inaad haysatid laba telefoon waa inaad haysatid oo kala madax bannaan si midna ugu dhigtid kii wax jabsanay kan kalena ugu dhigtid kii la jabsanay haddaba saaxiibayaal aniga laba telefoon waa haystaa ugu horeyn waxaad soo qaadanaysaa telefoonka aad rabtid inaad passwordkiisa jabsatid aniga telefoonka rabaa inaad passwordkiisa aan jabsado oo WhatsApp-kiisa aan jabiyo waxaan soo qaadaa asaga kadibna waxaan tagaa WhatsApp-kiisa ayaan tagaa WhatsApp-kiisa markii aan tago saddex dhibcood erarka ay ku dhufanaa kadibna waxa ka dooranaa link device marka doorto kadibna waxa leeyahay link device ka sii dooranaa waxaan leeyahay use mobile data kadibna waxaan leeyahay okay marka iraado asaga halkan ayuu ii jooga waa telefoonkan hadeertan midka aan rabo inaan anigu leeyahay ama aan password ku shabsamo midka aan rabo waa telefoonka koowaad asaga halkan markuu ii joogo kadibna waxaan tagaa telefoonka saaxiibkay oo aan rabo passwordkiisa inaan jabsado telefoonka saaxiibkay rabo passwordkiisa inaan jabsado ayaan tagaa waxaan tagaa Google Chrome-ka ama markaas browser-ka ugu jiro Google Chrome markaad tagtid falaarta ay ku dhufanaysaa kadibna waxaa ka dooranaysaa desktop site marka ka doorano halkan search ay wax loo qoray wax qori doonaa kaliya WhatsApp web ayaan ku qoraynaa WhatsApp web insbis ayaan ku qoraynaa kadibna waa search garaynaa sida marka u search garayno oo saan ugu soo baxo waxaan ka soo dooranaynaa linkigaas ugu horeeyo ee ku qoran tahay WhatsApp website ugu horeeyo ku qoran tahay ayaa linkigiisa ku dhufanaynaa marka aan ku dhufano saaxiibayaal sidaan ayuu maartay inoogu soo furmi doonaa sida marka uu soo furmo telefoonkaygina waa kana oo aan rabo inaan wax ku jabsado midka saaxiibkay oo aan rabo inaan jabsado waa telefoonkan labaad marka uu saan ugu soo furmo marka kadibna uu halkaan soo saari doonaa QR code kaas marka waxa ku sameey doonaa hadhooti scanner ayaa ku sameey doonaa QR code kaas ayaan akhri doonaa waxaan soo qaadanaa marka aniga telefoonka marka soo qaad QR code kaas ayaan sawiri doonaa saaxiibayaal QR code kaas markii aan sawiro labada telefoon sidaas ayay maarta isku connect gareysmaya taasina waxay isaaleysaa wax kasta oo loo soo diro saaxiibkay inaan la socdo anigoo haysta telefoonkayga wax kasta oo WhatsApp-ka loogu soo diro information kasta wax kasta qof wadaagan waa la socon karaa inta marka aan sameeyo saaxiibayaal waxaan tagaa markaan aniga telefoonkayga kaliya waxaan sugaynaa marka inta WhatsApp kale halkaan nooga soo furmi doono ayaan maarta sugaynaa wax yar aynu wada sugno waqti gaar ah ma ay qaadan doonto hagaag haddaba saaxiibayaal sida uga jeedin telefoonkan labaad waxa inooga soo muuqday dhammaan saaxiibkay dadka oo la hadlayo dhan waa kuwa halkan kaaga soo muuqday waxaan sameeynaa marka kaliya anu wax kale oo sameeynin dadka ayagu sida dadkan meesha ugu saaran yihiin fariinta aan diro waa la socon karaysaa aniga hadda qof ugu dambeeyo hadda aan fariinta u diro kale waa la socon karaysaa hadda waxa ay u koraysaa sida u jeedid meesha waxa ay u koray gabadhaas ay ku qoran tahay Firdawso kadibna waxa uu diraa engineer maxaa Yuusuf kala fariin u diraa inuu asaga uu kormaro ayaan rabaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum marka iraado waxa uu jeedaa telefoonka labaad waxa uu kormaray engineer maxaa Yuusuf waxaana diray fariin aan leeyahay assalaamu calaykum telefoonka aan ka dirayna waa telefoonkan koowaad marka dhaqdhaqaaq kasta oo saaxiibka sameeyo sidaas ayaad kula socon kartaa farsamadaas yar oo fudud adigoo isticmaalana ayaa la socon karaysaa waxay la tahay inaad soo fahantay farsamada yar ee aan kugu tusiyay sida loo jabsado WhatsApp-ka uu leeyahay saaxiibka ama qof kale tijaabadan waxa ku sameyn kartaa laba telefoon oo adigu aad leedahay mid kale aan ku xasuusiye qofkaan xataa hadii uu ka tago wadanka aad joogtid wadan kale oo tago xogtiisa si toos ayaad ula socon kartaa sidii aad hore ku soo aragtay fariin kasta oo loo soo diro mid kasta oo diro cod oo soo duubo wax walba oo qofkaas ay la wadaagto qof kale ayuu isticmaalaysa aalada WhatsApp-ka sidaas ayaa kula socon kartaa hadii ay tahay markuu horse muuqaalka soo gaaray muuqaalka like saar sina share garay qaybta hoose ee commentiga wixii su'aal ay qabtid in gula wadaag kaliya gaar doona muuqaalka xigana isma dhaaf